الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال عاوة وحان جعلناهي إنا وحكا شيغنو موضوع مهم وقف والبا مهم تحانيه برامجكي أن كسو جرني هرمرينتا آدنها ساد أكتهين qofka bini aadamka mawduucan inaan ka hadalno doonayna waxa weeye mas-uuliyad qaadashada, inuu qofku waxa ku dhacaya mas-uuliyaddeeda uu isagu qaato. marka mawduucan laga hadlayo dadku laba nooc bay u kala baxaan. qolo ogol hadday wax khaldaan, hadday wax saxaan, hadday wax toosiyaan, hadday khaldaan inay iyaga ka timi, iyo qolo jecel had iyo jeer inay mas-uuliyadda waxaas ku dhacay ama waxa ay iyagu khaldeen u saara had iyo jeer dad kale, ama duruufaha awgood baa waxaas u igu dhaceen, ama nasiib darro, ama waa la inecab yahay, ama wax lamid ah. mawduucana marka aada buu muhim u yahay. wuxuu muhim ugu yahay haddii aada wax saxdid waa jeceshahay in lagu yihahdo waa saxday. qof waliba waa jecelyahay in la yihahdo waxaas waa saxday, waxaas waad wanaajisay, waxaad waa ku fiican tahay. laakiin nafsaddu waa diideysaa oo waa ka hor imanaysaa marka la yiraahdo waxaas baad khaladay, dariiqaas baad ka leexatay, saas waa laga fiicnaa. dadku waxay jecel yihiin had iyo jeer ammaanta, laakiin ma jecla in iyaga wax laga sheego. waxaa laga sheegaya xataa haddii ay yihiin wax run ah oo ay xaqiiqada ku maaragtay ku aasaasan. matalan waxaad arkaysaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay acuudu billahi min ashaytaan arajiim wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum. ma jirto musiibo idinku dhacda, musiibadaasu ha yaraato ha weynaato, musiibada idinku dhacday waxay ka dhalatay oo sabab u ahaa wax gacmihiinu ay kasbadeen. saa awgeed baa qofka bini aadamka ilaahay wuxuu kula xisaabtamayaa waxa ka dhacay isaga, ee kula xisaabtami maayo waxaan isaga ka dhicin ama ilaahay uu ku ogaa inuu waxaa sameynayo keliya. ee waxaa la rabaa ficlan in wixii qofkii ay ka dhacaan markaasaa lagu xisaabinaya. waxaad arkaysaa dad fara badan oo ku leh wallaahi anigu tijaarada waa ku khasaaray. limaada? waxaan ugu khasaaray ninkii ama qofkii aan shuraakada ahayn ayaa i khaa-inay. kow, wuxuu ku leeyahay ballan buu iiga baxay, saa awgeed baan u khasaaray. wuxuu ku oranayaa anigu nasiibba ma lihiba tijaarada oo saa awgeed baan tijaaradii ugu khasaaray. tacliintana fahmadeyda iska xun, marka fahmadii hadday iska xun tahayna tacliintaydii way xumaatay, iyo wax lamid ah ayuu qofku ku wareegsanaya. si marka aada u noqotid qof toosan oo hore u socod ah oo wax qabsanaya, horta waa ina aqbashaa waxyaalaha adigu aada sameynaysid inay adiga kaasoo fulayaan, weliba aada qaadato haddana waxaa kaasoo fulaya mas-uuliyaddeeda. hadal haddaad ku hadashay, ficil haddaad samaysay, qof haddaad ballan u dhigtay, qof haddaad wax siisay, qof haddaad wax u diiday, camal lagaa rabay haddaad ka gaabisay, ballan alla haydeen haddaad goysay, waxaasoo dhan laalaabasho wax kaa tari maysee waxaad tiraahdaa waan sameeyey, waan khalday, anaa iska leh. markaas waxaad haysaa dariiqii sax ahaa oo laga yaabo inaad ka noqotid khaladkii inaad ka noqotid, ama aada saxdid, ama istoosisid. laakiin marka horeba haddaad diidma la soo taagan tahay, waxaan filayaa inaadan meesha aada joogtid aadan dhaafi doonin. dad badan baa waxay ku leeyihiin maanta waxa weye shaqadii waxaan u aadi kari waayey, roob baa da-ayay. mid kale wuxuu ku leeyahay hawada xumayd, mid kale wuxuu ku leeyahay xalay si fiican uma aanan seexan,
mid kale wuxuu leeyahay shaqadii baan ma garanaysaa nacay, saa awgeed baanan u aadin. waxaasoo dhan wixii ku dhaca qolo kalaa iska leh. la dooni maya saa. waxaa la dooni inaa waxa adigu samaysid duruufo oo aadan ka bixi karin ilaa ina kugu dhacaan maahane. matalan xayaatadaada waxaa kusoo maraya waxyaalo aadan waxba ka qaban karin. waxaa kusoo maraya waxyaalo ay ku khasban tahay inaad ku adkeysatid. waxyaalana waxbaad ka qaban kartaa oo waad bedeli kartaa. matalan gaari baad wadataa, dariiq waxaa kusoo dhacday gawaari fara badan ay dhooban yihiin, markaasaa traffic lightka ama ishaaradii ay waxay is haysataa ilaa caro ilaahay. haddii maxaa ka qaban kartaa? miyaad dooleysaa? arrintaa waxba kama qaban kartid. inaad xanaaqdidna maaha, inaad isku buuqdidna maaha. waxaad xaawisaa waktigaas aada usoo meeshaad joogtid sidaad uga faa'iideysan lahayd. haddaad wax akrinaysid oo waxaad akrisatid haysatid, haddii waxaad daawatid haysan kartid, haddii qof markaad meel tagtid teleefon aad u diri lahayd, haddaba teleefonkii u dir oo muddadan wax faa'iide leh ku bedel. laakiin ma bedeli kartid leanna waxaad ku dhex jirtaa. sidoo kale hadduu qof kaa dhinto, haddii dhimashadii waa wax ka baxsan daaqadaada. haddii dagaal ka dhaco meeshii aad joogtay, inaad carartidna khasab noqoto oo balaankaagii waxaagii waxaasoo dhan inaad isku eedid maaha. mana aha inaad berri cudurdaar ka dhigatide. markaad meel tagtid waa inaad bilowdaa wixii aad dooneysay in adigu aad samaysid. laakiin marna ha isku dayin inaad u saartid fashilkaaga ama waxyaalaha aad khaladay ama waxyaalaha ma garanaysa aad ka gaabisay dad kale. maxaa yeelay ma sahlana markaa inaad wax saxdid. laakiin mas-uuliyadda shayga markaa inaad qaadatid waa shayga koowaad oo aad wax ku sixi karaysid. anigu waa khaldamay. matalan qof baad xumaysay, qof baad u gaftay, inta u tagtid salaam, waxaad tirahdaa iga raalli ahow waan kuu gafi, laakiin wallahi wejigiisaan nabcahay, wallahi ma arki karo, si xun buu ii fiiriyaa, maalin buu saa igu yiri. waxaasoo dhan wax ma bedeli karayaan. ogowna meesha aad wax ka bedeli kartid adiga waa nafsadaada, laakiin dadka kale lama hubo intaa ka bedeli kartid. meesha keliya la hubo oo wax ka bedeli kartid waa nafsadaada. saa awgeed ku mashquul inaa mas-uuliyadda waxa adigu aad ka gaabisay, tacliin ha noqoto, baac mushtari ha noqoto, dad kale la dhaqan ha noqoto, wixii aad ka gaabisay isku day inaad qaadatid mas-uuliyaddeeda oo wax ka bedeshid. waana tallaabada ugu horeeya oo ku horseedi kara horumar xagga nolosha ah. intaas ayaan kusoo koobaynaa mawduuca kan. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.